hadda xabad baanu isu dhigi jiray dollar iyo diinaar baa wax naga qaaday anaga dollar iyo diinaar la soo diraa halkaa waxaa inoo yaala lacag waa cunis mabtana waa halkiisa wixii la soo diro waa la laqaya waayo waa wax eelu lahayn oo cadaalad darre naga maqnaa haddayna soo gaareen waa qaadanayna laakiin dalkayaga iyo mabda'ayaga iyo shacabkayaga dantiisa nina uga leexan mayno waxaan rabaa inaan idiin sheego puntland dhismaheeda waqti badan dhiig badan naf ku baxday maal ku baxay bay ku dhisantay dad baa u soo jiifay dhallinyaro ah oo reer puntland ah baa intaasoo sano dhaxan iyo meel cidlaa u jiifay inay difaacaan markii la aasaasay kadib waxaa jira dad badan oo aan weligood injiri garin oo injiri u soo gashay waxaa jira dad badan oo aan gaajo arag oo wax badan u soo gaajooday waxaa jira nimaan xabada weligiis ku dhicin oo ku dhacday oo u soo dhaawacmay waxaa jira nimaan islahayn carruurtaada iyo reerkaaga ka dhimo oo naftiisa u horay dalkan iyo puntland say u jiri lahayd intaa markaan idhaahdo ilama qumana marka inay si dheeldheela inooga fara baxsato inaanu ku fara adeegno oo dadka aan ka soo sheekeeyey abaalkoodii aynu gudno kuna gudno inaanu gacnaha ku koorkoorino puntland kana ilaalino cadowga dibadda iyo gudahaba kaga dhalan kara waxaan qabaa maamul baanu nahay maamulka waxaa jira sharciyaal baa jira waxaa jira nidaam aynu ku dhaqmayno waxaasoo dhan waxaa loo dejiyey waa in lagu kala dambeeyo wey hadday wax qaldamaan kaasaa la aadaya lagu kala baxaya tusaale haddaan soo qaato nimankii odayaasha ahaa oo guddiga ahaa iyo shiikhii lagu xiray boosaaso dhowr beri hadday xiraayeen maxkamad baa la keenay waxaa la yiri waa la sii daay xorriyadiina la sii sharcigu waa ka sharcigu nin aan dambi lahayn dambi waa abuuri maayo nin dambi lana sii dayn maayo marka waxaan idin xusuusinayaa inaanu keliya ogsoonaano in sharci inoo yaal oo si loo kala baxay ay jirto oo nidaam loo kala baxaa jirto laakiin fowdo iyo rabsho iyo calan la gubo iyo dad la maago iyo dad la caago inaguma fiicna puntland waa hal family meel wada jooga cid kastoo yihiin ama kuwa kusoo qaxay ha noqdeen ama kuwa businesska u yimi ha noqdeen ama kuwa u dhashay ha noqdeen puntland waa one family familigaas inuu isdhaqaalaysto gacmaha isqabsado ku dadaalo say u dhisi lahaayeen una horumar lahaayeen dadkooda iyo dalkooda ayaa loo baahan yahay alxamdulilah puntland waxay maraysaa meel fiican munaasabad fiican baa ina hortaala waxaan rajaynayaa inaanu ka faa'iidaysano dhallinyarada dumarka aqoon-yahanka saraakiisha siyaasiyiinta waxaan ka codsanayaa in gacnaha la isqabsado inaynu saxno qaladaadka jiro la isu qabsado inaynu iska ilaalino docodocaynta ama faragelinta laynagu hayo inaynu iska ilaalino in layna dhinac maro gadaal laynaga soo galo waxaan u sheegayaa soomaali puntland cadow badan baa soo weeraray cadowgii wixii la kulmay ilaahayna ogyahay ummadduna waa og tahay puntland waa isdifaacaysaa mid guda ka soo dhexbaxa iyo mid bannaanka kaga yimaada waa iska difaacaysaa horena waa isu difaaci jirtay haddana waxay u taagan tahay inay difaacdo nidaamkeeda siyaasadeeda iyo maamulkeeda iyo xorriyaddeeda iyo amnigeeda ciddii ku soo daandaansatana khasaaray kala kulmayaan waagii hore waxaynu arki jiray niman hub watoona soo weerara oo meelaha godad inoo gala oo meelo kale naga soo gala arrintii hadda waa isbedeshay waxay isu bedeshay dollar iyo diinaar hadda xabad baanu isu dhigi jiray
دولار دينار بقى وحنا قاضي أنا دولار دينار للصدرة هلكا waxay noo yeelan lacag waa cunis mabtana waa halkiisa wixii la soo diro waa la laqaya waayo waa wax eelu lahayn oo cadaalad darro inaga maqnaa haddayna soo gaareen waa qaadanayna laakiin dalkayaga iyo mabda'ayaga iyo shacabkayaga dantiisa nina uga leexan mayno waxaan rabaa wax yar inaan idhaahdo xildhibaano baan u dirsanay xamar xildhibaanadan xamar u dirsanay badidoodu waxay ka shaqeeyeen inay lacagta ka soo qaadaan madaxda federaalka hebel caawa lacag baan kuu soo dirayaa shoob barsamay hebel lacag baan kuu soo dirayaa calanka hala gubo hebel lacag baan kuu soo dirayaa idaacadaha ka naga xishoodaan leeyahay inaan naga xishootaan baanu istaahilaa naga xishoo madaxda federaalka dowladda federaalka waa dowladdii guud ee Soomaaliya waxayna mas'uul ka tahay dalka gebi ahaantiisa dowladdii aan u dirsanay dalka inay hanato oo hogaamiso hadda madaxtooyada hadday dhaafi waayeen waxaan maqlay aabow ka yar iga celi ka weyn anaa ku filan war haddaad dhaafi weydaan madaxtooyada hareeraheeda waa bannaankii iyo dowladihii dhismay iyo maamuladii dhismay oo wanaagga rabay oo inay idala shaqeeyaan baad rabtaan inaad dumisaan ma qabo inay habboon tahay siyaasadda dowladda federaalka waxaa laga rabaa inay hogaamiso dalka wanaaggiisana ku hogaamiso ma aha inay ka hogaamiso burburintiisa ma aha inay ka hogaamiso inay maamulada baabi'iso ma aha inay hadba lacag soo dirto lacagta la soo diraya waa lacagtii mucaawanada la helay oo loogu talagalay horumarinta waddanka lagu sameeyo waxay ku habboon tahay in janalkeeda loo duwo prime minister khayre wuxuu joogaa gaalkacay iyo dhuusamareeb maanta 3 cashay u tahay hawluu ka wadaa hawlahaas maxay noqon doonaan waa sugaynaa innaga haddaynu reer puntland nahay shacabka dowladda cuqaasha waxgaradka culimada kulligeen inaan isku duubanno oo cadowgaas cirka naga soo daadanaya inaanu ka difaacno oo ciidanka difaac cirka noqono baa loo baahan yahay waxaan kaleeto rabaa inaan taabto Jubbaland baa hadday uu ka shaqeeyay wasiir Cabdiburhaan Jubbaland waa maamul jira lana soo doortay teramkii labaadna galaya hadda maamulada goboladu iyaga u madax bannaan inay is doortaan inay xildhibaanadooda soo doortaan inay madaxdooda doortaan inay wasiiradooda magacoodaan iyaga u xoraan faragelin aad u ballaaran baa lagu hayaa waxaa lagu hayaa in loo diro dad lacag looga sii dhibay boorsooyin lacag xamar waxaa lagu wadaa dad aan u bislayn inay qabtaan Jubbaland in laga soo istaajiyo meesha waxaan leenahay ha loo daayo talada reer Jubbaland ha doorteen ninkay rabaan oo iyagu ay rabaan ha loo daayo xildhibaanada soo xulanayaan xildhibaankay rabaan ha soo xogteen saas darteed waxaan rabnaa in loo siiyo kalsooni faraha laga qaado oo ay hawshooda iyagu dhammaystirtaan waxaan qabaa inaan hadal ku soo koobo maanta innaga inala taala arrintii kubaddii waa laynagu soo laaday innaga laynoo soo laaday inaynu iska ururino oo ka tashanno baa loo baahan yahay inaynu innagu ku dadaalno si aynu dalkeena iyo dadkeena u difaaci lahayn waxaan loo baahan yahay dadka miidyada wax ku warqora inay wax wanaagsan sheegaan oo Puntland ka jira waxaa laga rabaa inayan u horseedin waxaan jirin iyo waxyaalo laga sheego banaanada oo aan sax ahayn waxaa dhabta in laga qoro dalka iyo dadka waxaan leeyahay Puntland ha guulaysato shacabkeedu ha midoobo ha ka guulaystaan cadow kasta oo ku soo wajahan
ama mid lacag wata ha ahaado ama mid qori wata ha ahaado waxaanu ballan qaadaynaa inaanu difaacno dowladayada iyo dalkayada iyo shacabkayaga intaa haddaan ka soo gudbo qadadu waa noo furan tahay aad baan ku mahadcelinaya. DMI